الحمد لله gabadhu wali laguma meherinin laakiin waa lagu siiyay sismada iyo meherku kala laba way curfiga sharcigaana waxa la kala yiraahdaa khitba iyo nikaax nikaax waa meherka laakiin khitbadu waa doonista iyo sismada curfiga iyo culture-ka dhaqanka Soomaaliyeedna luqada waa lagu siiyay waan ku meheriyay waan ku siiyay macnaheedu waxa weeye gabadhii waan ku ogolaaday way laakiin processkii ama khadkii soo marday meherka fadhiyada marka la isugu yimaado gabadhii waa idin weydiisanay Soomaalidu dhaxdaa waa idin siinay maxaa xiga meherkina noogu dara ama inta la isweydiisto la isa siiyo ba meherkana munaasabad kale la isugu yimaadaa dadkuna markay hadlayaan curfiga iyo dhaqankooda ba luqadooda iyo ereygooda lagu fahmaa oo qofku wuxuu u hadlayaa wuxuu rabaa inuu ku cabiro waxa uu yaqaan hadaan Soomaalinahay marka gabadha waan ku siiyay iyo gabadha isii waan ku meheriyay maaha mid labaad telefoon baad ku wada jirteen hadii waxa aqd nikaax laga dhigi lahaa aw shaahidka iyo markhaatiga markhaatiga nikaaxa marka la meherinaayay la nikaaxa illa biwaliyin murshidin wa shaahidi adl aw labadi markhaati aqdiga arkaantiisa waxa kamid ah shuruudiisaba mid basaad basida loo dhigaba wa shaahidayn sadarteed arina gabadha waa lagu siiyay intaad khadkeedii talaabadii xigtay qaado meherkii iyo wilaayadii iyo saad guurka u dhameystiri lahayd wali way ku dhimantahay billahi